بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dadka Somaliland oo dhan. aan ku salaamayaa nabadgelyo, oo rajaynayaa nabadgelyo iyo nolol wanaagsan iyo noloshan ay maanta galeen oo Ilaahay u sii hagaajiyo. intaa ka bacdi maanta waxaan halkan ka hadlayaa qodobka la yiraahdo education ama tacliinta oo ah waxbarashada iyo barbaarinta. dadka wax la barayaana waa dad oo dhan, rag, dumar, odayaal, ciyaal, caruur oo dhan way dadka wax la baraya. laleeyahay waxbarta. marka qur-aanka kariimka ahi wuxuu inoo sheegayaa in dadku wax barto. qofkii aan wax baranina waxayna tusaysaa taasi inaanu diintiisa iyo dunyadiisa midna la socon karo oo si wanaagsan ula socon karo. markaa waxaanu leenahay dadka iqra' sidaa Ilaahay yidhi ee amarka ku bixiyey ee nebigiisa ku siiyey ee nebigiisa kariimka ahina in lagu soo gaadhsiiyey in qofku wax akriyo. wax aqriska waxa ka dambeeya tacliin oo dhan baa ka dambaysa. wixii la baranayay oo dhan baa ka dambaysa. waxii la baranayay oo dhamina wuxuu ku xidhan yahay اقرأ أخري واحد. هدي أنا روح أخرين وحبا قبسن كلمتي واحد لقيت ممكن بقى شموية واحد لقيت كم قشارة وهو يسكب بعض وأنقرين وأنا الأخري كله مركا هدي نوصل نقول تعليمته أما تعليمته Somaliland waxa weeye marka tacliinta wax laga bixiyaa arrimo badan baa laga bixiyaa. tacliintu waa maxay? education waa maxay? arrimo badan baa laga bixiyaa. laakiin marka lagu soo ururiyo tacliintu waa nolol living. haddaba aniga oo ah Khaalid bin Muuse Caafi waxaan idinka sheekeynayaa markii aanu iskuullada galnay. iskuulkii ugu horreeyey elementariga ahaa ee magaalada Sheekh laga sameeyey 1944 sida aanu wax ku bari jiray waxay ahayd noloshu nolol aad iyo aad noogu adag xagga tacliinta. waxaa jiray inaanu laambada shidan jiray habeenkii si aanu wax ugu aqrisano oo laambaduhu midna koona la taagan yahay baasha la fadhiyo adiga oo koonaa kale fadhiyaana aada wax ku aqrisan jirtay. ilaahay qudradiisa waanu arki jiray oo laambadaasaan wax waxaa jirtay waxa aanu wax ku qoran jiray buugag yaryar bay ahaayeen. inta badan marka aan la doonayo inaanu farta baranno waxaana la geyn jiray meel bacaad ah oo ciid leh. markaasaana la odhan jiray qorac. markaasaanu ciidda dusheeda ayaanu ku qori jiray. haddii la yidhaahdo
waxaa bismillaahi qorac bismillaahi ciid dusheedaan ku qori jiray markaasoo halkaas ayaanu farta ku baranay markaas meeshu aad iyo aad ayay u adkayd waxaa kale oo nagaga daraa dadka dadweynaha mujtamaca ah oo marka aanu magaalada tagno odhan jiray waa carruurtii gaalada annagana gaalaba lamaanu joogin iskuulka allaha u naxariistee ninkii la odhan jiray maxamuud axmed cali ayaa iskuulka la keenay oo nin walba aabihii ka soo bariyey sida aanu hadhowtuna adiin sheegi doono oo markaasaa lagu soo daray inan walba aabihii ku soo daray markaas gaaladu way ka soo horjeeday inaan wax barano ma jeclayn inaan wax barano oo dabadeedna aanu dad wax garanaya oo raacay waxa qur-aanku lagu amrayo iyo waxa dadku lagu amrayo markaas ilaahay iyo macallimiintayadii ayaa nagu hayay meesha khusuusan odayga aan idiin soo sheegay allah u naxariiste waxaa kamid ahaa yuusuf xaaji aadan baa kamid ahaa oo isna la yidhi dhawaan buu dhintay oo hargeysa ku dhintay ku geeriyooday waxaa kamid ah cabdisalaam xasan mursal maxamuud xaaji ducaale yuusuf ismaaciil samatar iyo dadkii kale ee lagu shajicin jiray inaanu wax barano oo aan ahayn shacbi weynaha oo ka soo horjeeday tacliinta oo la odhan jiray halkan waxbarashada waxaa lagu barayaa carruurta cilmi gaaleed baa lagu barayaa innagana diinteennu waa islaam markaas sidaa aawadeed waanu ka soo horjeednaa tacliinta waxaanu doonaynaa in la baabiyo oo laga joojiyo carruurta malcaamid qur-aankooda ku jireen halkaasay qur-aanka ka baranayaan iyo diinta markaa baadari looma baahno iyo dadka kale markaas macallimiinteedii na caawin jiray ee meesha nagu hayay wixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto wixii nool ah ilaahay nolol wanaagsan oo fayo qabtaa ha siiyo markaas dhibaatadii annaga nagu soo dhacday ay ahayd taa macallimiinta ayada haysatay oo mushaarkoodu yar yahay oo arrimahoodoo lama yar yihiin ayay ahaayeen markaa dhibaatadana haysatay iyagana waa haysatay haddaba halkaa haddaynu dhaafno tacliintii ugu horreysay waddanka somaliland waxaa dhibaato u keenay iyada oo baadari laga furay halka la yidhaahdo dhaymoole waa sheekh waa hudisa agteeda dhaymoole oo carruur la keenay oo dad badan la keenay oo baadariya loo keenay wuxuu mid ah markaas dadkii soomaaliyeed
waa kaceen waa is hortaageen baadariyadaas iyo dad kale ay keeneen iyo waxaanay carruurta barayaan markaas waa is hortaageen markaa iskuolkii waa la baabi'iyey markii dambe oo daarihiisii weli halkoodii ayay ka dhisan yihiin haddaba carruurtii baadariga la keenay badhna way ka yaaceen oo reerahoodii bay qabteen qaarna baadarigii ayaa qaaday oo cadan baa la geeyey markaa cadan ayay wax ka soo barteen markaa waxaa jira dad badan oo soomaali ah oo inkastay muslimeen oo muslim yihiin haddana weli magacyadii ay gaalada u bixisay haystay ayaa jiray waxaa kamid ahaa james baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa george baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa magacyo badan oo caynkaas ah oo haddii aad dib isugu fiirsataan kulligiba aydan xusuusanaysaan oo wada magac kaga jeeda kuwaas iyagu waxay wax kusoo barteen cadan oo aday wax kusoo barteen markaas markii dambena badankoodii iyagoo muslima ayay soo noqdeen dhowrna waxay la soo noqdeen gaalnimadoodii bay la soo noqdeen markaas dadkaa magacaabi maayo idinkuma wadan garanaysaan markaas dadkaa xaggaa ka yimi ayaaba ka mid noqday dadkii dadka anfacay dadkii waddanka anfacay ama karaaran ha noqdeen ama administrators ha noqdeen ama qaarkood macallimiin ha noqdeen ama shaqooyin waddanka looga baahnaa ay qabteen ayaa nimankaasi iyaga kullooda mahad ay mudan yihiin mahad bay mudan yihiin markaa waktigaa baadariga la xidhay soomaalid iskuulle ay leedahay ma jirin markaas niman allah u naxariistay maxamuud axmed cali ka mid yahay oo reerkoodu u diray suudaan iyo yuusuf ismaaciil samatar iyo rag kale oo badan oo macallimiin leh oo injineero ku jiraan injineero sida cali jirde cali xaaji maxamed jirde oo la yiri ordo suudaan wax kusoo barta aabbayaashood baa diray dawladda ingiriisku may dirin oo da tacliinta lagu doonin markaas dadkaas ayaa wax kusoo bartay suudaan markaas maxamuud axmed calina allah u naxariistee jawaaba kan tacliinta bilaabay ee ka bilaabay magaalada burco burcona way ku kacday tacliinta waxaa jiray nin faranji oo markaa laga dhigay director of education waaba lagu dilay meesha uu dhintay maxamuud axmed calina wuxuu la kulmay dhibaatooyin ay ka mid tahay cay iyo aflagaado iyo udhaarasho oo laleeyahay baadari baa tahay waanu ku dilaynaa ayuu markaas sidaan haddii kusoo sheegay rafaadkii aanu soo maray iyo dhibaatadii dadka nala midii soo mareen ilaahay waa naga soo saaray mahadna waxaa ku leh ilaahay odaga allah u naxariistay maxamuud axmed cali iyo macallimiintiisii la shaqaynaysay ee tacliinta la dhigaysay ee annagana gacanta nagu hayay ee had iyo goor dariiqa toosan na tusi jiray dariiqa khaladkaana naga dugi jiray ayaa mahad leh intaan ku leh marka taasi
yaan soo dhaafo maanta dadkii aanu iskuullada ahayn ama intayadii ugu horreysay maxamuud axmed cali uu keenay sheekh maanta badankoodii waxay noqdeen dad jaamacada ka qalin jabiyey waddankoodii ku noqday dadkoodii waxbaray hadduu ahaa injineerna injineer uu noqday waxbuu u dhisay hadduu macallin ahaa waxbuu u dhigay hadduu dhakhtar ahaa dee wuxuu noqday dhakhtar dadka daweeya waxaasina waxay kasoo bilaabmeen dee iskuulladaa la galay iskuulla haddaan la gelinna oo iskuulla wax lagu barana dee waxyaalahaas aan idiin soo sheegay lama qaban kareen oo dhibaato weyn ayay noqon lahayd dariiqaba lama heleen haddii aan tacliim la helin haddaba waxaa jirta maanta dhibaatadii aan soo marray haddii loo qiyaaso ta maanta jirta iyo raaxada dadkuna haysto maanta oo aananu haysan oo ay ka mid tahay electric gawaaro la raaco guryo dugsoon oo la seexdo dhar wanaagsan oo la gashado waxay la tahay markaas laba nololood oo kala fog ayaanu annaga iyo idinku aanu ku kala nool haddaba taayadii qudheedu hagaagtay oo iminka alxamdulilaah carruurtayadiina daleelka iyo waydala haystaan waxay aad maanta haysataan way haystaan dad badan oo weli aan gaadhinina way jiraan waxay u gaari waayeen tacliin la-aan bay u gaari waayeen iyo awood la-aan dhaqaale labadaas ayay u tegi waayeen oo ay u gaari waayeen nolosha haddaba ilaahay nolosha haynoo hagaajiyo innagana maskaxdeenna ilaahay ha ku hanuuniyo inaynu iskuulla gallo inaynu waxbaranno inaynu dadaallo dhibaataduna dhibaatadayadii hore way ka yaraanaysaa hadii la sameeyo maanta waxaan halkan idinkala hadlayaa waxaan maqlay oo aan aada iyo aada ugu farxay in burco laga sameynayo jaamacaddaas aada iyo aada baan ugu farxay in laga sameeyo burco leanno dad badan ayaa burco haleelo degan dad badan baa dadka burco ka baxaa ay gaadhayaan dhul badan bay gaadhayaan dhul badan bay waxu qabanayaan dhulka inta hadhe ayay hagaajin karayaan sidaa aawadeed aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay jaamacadda ah lagu fikiray in laga sameeyo burco jaamacadaha hore ayaa jiray oo ka horreeyey masalan taboorame iyo ka hargeysa laga dhisay iyadaba ma ahayn dhul dawladda caawisay dadka jooga nawaaxida ah ayaa iyagu isa saaray inay jaamacadaha dhisaan in ay carruurta keenaan in wax laga barto iyagaa keena maantana de burco iyo nawaaxideedu waa nawaaxi badan oo ballaaran inay maanta sameeyaan oo jaamacaddaa dhisaan
barnaamijkeeda u hagaajiyaan waa dad kari karaya oo awood u leh. marka waxaan kula talinayaa dadka inay wixii ay bixin karayaan awood u leeyihiin ee ay ugu deeqayaan jaamacadda inay iska bixiyaan. insha allah ilaahayna ku xili maayo, ilaahayna ku adkayn maayo. ardaydana waxaan kula talinayaa inay jaamacadda galaan oo wax ka bartaan oo dabadeedna waddankooda dhulkooda ay anfacaan oo uu ka faa'iidaysto. arrinta waa sidaa inuu sheegay. markaas dadka dabadaha jooga kuwa waddanka jooga giddi waxaa looga baahan yahay inay jaamacadda la dhisayo ay wax ka qabtaan wixii ay ka qaban karaan. wixii dhalinyaro ah, gabdho iyo wiilalba waxaa loo baahan yahay jaamacadda inay dadaal gooni ah u sameeyaan oo waxbarashadana ay aada iyo aada ugu dadaalaan. oo dadkani waa dad waynu habsaanay oo waqti badan baa ayna haysatay dhibaatooyin badan ayna haysteen. markaas inaynu waxaani aanu dib u cusboonaysiino, mar labaad cusboonaysiino oo heerkoodana sare usii qaadno ayaa loo baahan yahay. markaas dhalinyarada aada iyo aad bay u mahadsan yihiin, dadka waaweyn aad bay u mahadsan yihiin.